dhacdadan aan ka hadlayno waa dhacdo aad u la yaab badan misena xanuun badan. waxaa hubaal ah adigan in aad la yaabi doontid. soo qaada koobkaaga shaah kadibna ku dhammayso dhacdadan. ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. mahadsanid. dhacdadan waxa ay ku saabsan tahay qoyskan oo si farxad leh iskaga noolaa. waxayna ahaayeen hooyo, aabe iyo gabadhooda curadda iyo 2 wiil oo ka yar. dhacdadan waxa ay bilaabatay sanadka markuu ahaa 2008 markii ay gabadhan naqatay mid qaangaar ah. bartamaha 2008 haween saqadhex saacaduna ay ahayd 2 habeennimo waxaa guriga qoyskan soo hor istaagay baabuur ay saarnaayeen 3 qof oo kala ahaa Charlie oo 19 sano jir ahaana qoyska gabadhan oo lagu magacaabo Larry gacliheeda iyo gabar iyo wiil oo asxaabtiisa ahaa oo lagu magacaabo Marlis Wells iyo Bob Johnson. baabuurka waxaa si degdeg ah ugu soo baxay Charles oo ahaa Larry saaxiibkeeda iyo asaga saaxiibkiisa. Larry oo sugaysay saaxiibkeeda iyada oo diyaar ku ahayd albaabka ayana si degdeg ah ugu furtay. waxa ayna ku booday saaxiibkeeda Charlie oo ay shumisay wayna garab martay. si degdeg ah ayana baabuurkii ku kortay iyada oo la fadhiisatay gabadhii kale ee Bob Johnson. labadii gabar waxa ay sii fadhiyeen baabuurka inta ay labada wiil ka soo fulinayaan qorshaha ay lahaayeen. labadan wiil oo u dhaqaaqay dhankii albaabka iyada oo u sii diyaarisay waxa ayna ku hubaysnaayeen bistolooyin iyo mindiyo. markii ay albaabka ka galeen waxa ay si toos ah u beegsadeen qolkii ay labada waalid ku hurdaayeen. waxayna bilaabeen in ay rasaas ku furaan labadii waalid. isla markaasna waxaa madaxa xabadda kaga dhacday hooyadii waxayna ku dhacday dhinaca dambe ee sariirta. sidoo kale Teddy oo ahaa aabbaha Larry waxay ku dhufteen 10 xabad iyaga oo ugu dhuftay meelo kala duwan oo jirkiisa oo ay ka mid tahay madaxa. balse Teddy sidaas kuma dhimanin. xoogaa waa uu miir dawoolmay kadibna waa uu soo kacay. waxa uu aaday dhinaca xaaskiisa. nasiib xumo xaaskiisa waxa ay ahayd mid meyd ah. markii ay xabadaha ku dhufteen kadib ayay qoorta mindi ugu jareen oo qoorteeda wax yar ayay iska haysatay. Teddy waxa uu maqlay dhawaaq ka yeeraya dhanka qolka carruurta ay hurdaayeen. waxa uu maqlay wiilka ka yara Larry oo ku dhawaaqaya, Charlie maxaad samaynaysaa ha idilin. sidaas ayuuna ku dilay. waxa uuna ogaaday in wiilkiisa yaraa halkaas uu ku dhintay. wiilkaas wiilkii ka yaraa markii uu maqlay dhawaqa rasaasta ayuu bilaabay in uu isqariyo. waxa uuna ku dhuuntay armaajada dharka lagu xareeyo laakiin sidaas uguma harin. way raadiyeen. markii ay heleen sidaas ayayna ku dileen. weliba asaga oo tuugtamaya oo leh ha idilina waan idin baryayaa. intaas kuma ekaanin ee waxay sameeyeen marka ay guriga ka sii tagayeen ayay dib qabadsiiyeen. kadibna baabuurkooda ayay ku baxsadeen meesha ayayna iskaga tageen weliba iyaga oo faraxsan guusha ay gaareen. waxayna aad ugu faraxsanaayeen famil nabad qabo oo iska hurdaaya in ay soo dileen. waxaa midaas ka sii daran gabadha yareed oo qoyskaas ka dhalatay ee baabuurka ku sii sugaysay in ay aad ugu faraxsaneed howsha ay labadan wiil soo qabteen. saaxiibkeeda Charles ayay aad u dhunkanaysay iyada oo laabta ku qabsatay. intaas kuma sii ekaanin oo markii ay gurigiisa tageen waxa ay ku casuuntay in ay galmo la samayso oy la raaxaysato. habeenkaas oo ahaa habeenkii hooyadeeda iyo walaalaheeda ka yaryaraa dunida ay ka tageen. ninka ay la raaxaysanaysana waxaa farihiisa ku yaalay dhiigga hooyadeeda, aabbaheeda iyo walaalaheeda ka yaryaraa. cajiib. haddaba daawada maxay tahay sababta ay waalidkeeda naceebka intaas la eg ay ugu qaaday gabadhan? sida la sheegay labadan waalid waxa ay ahaayeen kuwo aad u jecel gabadhooda kana talin jiray mustaqbalkeeda in ay guul ka gaarto. sida ay sheegeen deriskooda labadan qof waxa ay ahaayeen kuwo aad u degan kuna dhaqmi jiray diintooda dhibna lagama sheegan jirin. haddaba haddii ay sidaas tahay gabadhan maxay ficilkan foosha xun u samaysay? arrintan waxa ay bilaabatay 5 bil ka hor inta aysan dhicin dhacdadan. kadib markii ay Larry baratay jaceylkeeda ugu horeeyay ee Charlie waxay wiilkan u qaaday jacayl waali ah oo xadkabax ah. waxayna diyaar u noqotay in wiilkan dartiisa ay u samayso wax walba ay ku heli karto oo ay nolosha la wadaagto. qoyskeeda ayaa gabadhan waxa ay ku arkeen farxad iyo isbeddel xooggan oo ay badanaa aan ku arki jirin. muddo kadib ayay hooyadeeda u sheegtay in ay wiil jeclaatay. waxayna ku tiri, hooyo wiil ayaan aad ugu helay waana jeclaaday. gabadhan oo ahayd gabadha ahaan iska yareed xilligaas hooyadeedana waa markii ay ugu horeysay oo ay ka maqashay arrimaha noocan ah. hooyadeed ayaa waxay ku tiri, waa iska caadi wax dhib ahna ma lahan. kadibna hooyada waxa ay arrintii u sheegtay oo ay la wadaagtay aabbaheeda waxayna u sheegtay in gabadha ay leedahay wiil ayaan la saaxiibay
ugu dambeyn waalidkii waxa ay isku waafaqeen in ay hadalkeeda ka hor imaanin oo ay niyad jabinin. Aabbaheeda ayaa gabadhii ku yidhi, gabadhayda waa arrin wanaagsan ee wiilka aan la kulmo oo habeen casho noogu ballami si aan u hubiyo in uu dabeecad wanaagsan yahay oo uu ku qalmo iyo in kale. wiilkii ayay arrintii u sheegtay waxa ayna ku tiri, aabbahayga ayaa kuu baahan, waxa uuna rabaa in aad hal meel ku wada cashaysaan. wiilkii ayaa arrintii aqbalay, guriga ayuuna imaaday, laakiin aabbaheeda islamarkiiba waxa uu ku arkay arrimo uusan ka helin, asaga oo markii uu imaaday aan salaamin, kuna fadhiistay kursigii uu ku fadhiisan lahaa. aad ayuu ula yaabay, kursi kale ayuu iska fadhiistay aabbihii, wuxuuna ku yidhi, waxaan filayaa inaad Charlie tahay, asaga oo gacanta u taagay si uu u salaamo. wiilkii ayaa aabbihii fiiriyey asaga oo aan salaanta ka qaadin, wuxuuna ku yidhi, haa, waxaan ahay Charlie, adiga yaa tahay? aabbihii oo yaaban ayaa gacanta iska soo ceshtay, wuxuuna ku yidhi, aniga waxaan ahay gabadha aad la socoto aabbaheeda. labadii waalid ayaa muddo kadib waxa ay gabadhii ku arkeen in ay guriga iskaga maqan tahay oo aan soo laabanaynin. waxay la soo baxday gabadhii dhaqamo xun iyo madax adeeg oo aan horay loogu arkin. Teddy oo ah aabbaheeda oo arrintan ka warbixinaya ayaa waxa uu yidhi, waxa aan bilownay in aan baarno barihiisa social mediaha, waxaana ogaanay in uu gabadheena jecelkeeda ka faa'iidaysanayo. weliba waxaa intaasi dheer in uu leeyahay saaxiibo xunxun oo ay ka sheekaysanayeen arrimo ku saabsan daroogooyinka iyo maandoorayaasha. qoyskan oo ahaa kuwo ku dhaqma diintooda ayaa waxa ay bilaaween sida ay ugu reebi lahaayeen gabadhooda wiilkan xun. gabadhooda ayaa waxa ay ka codsadeen in ay u jarto xiriirka ay la leedahay wiilkan, sababta oo ah wiilkan ra'yi ahaantooda uma qalmo. markii ay maqashay hadalkan gabadhii, wejigeeda ayaa isbedelay, madaxa ayaana ku xanuunay. islamarkiiba waxaa maskaxdeeda ku soo dhacday in ay qoyskan oo dhan baabi'iso si ay wiilkaas keli ugu noqoto. haddaba Teddy habeenkaas ma dhimanin, waxa uu u garguurtay guri deriskiisa ah. meesha ayuu booliiska ka wacay una sheegay in uu dhibkaas oo dhan ka dambeeyey gabadhiisa saaxiibkeeda. ugu dambeyn saddexdooda waa la soo qabtay, waxayna kulligooda qirteen in ay dembigaas ku lug lahaayeen, balse maskaxda ka dambaysay arrintan in lagu dhaqaaqo waxay ahayd Larry oo ahayd gabadha uu aabbaha dhalay. Larry ayaa arrintan dood ka keentay, laakiin waxaa xaqiijiyey asxaabteeda ay iskuulka wada dhiganayeen, iyaga oo sheegay in ay aad ugu xanaaqsanayd qoyskeeda, uguna hanjabaysay in ay baabi'in doonto. labadii wiil oo ka dambeeyey dilka ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo aan kasoo noqosho lahayn, halka gabadha la socotayna lagu xukumay 40 sano. Teddy markii hospitaalka la seexiyey ayaa dhakhtarkiisa maalmo kadib u sheegay arrintan oo dhan in ay gabadhiisa ka dambaysay. Teddy ayaa arrintii wax macquul ahayn la naqatay, waxa uu bilaabay in uu qayliyo ilaa dadkii oo dhan isku wada imaadeen. muddo kadib markii uu isbitaalka ka soo baxay ayaa waxa uu u yimid carruurtiisa iyo xaaskiisa oo aan adduunkan ku nooleen, iyo gurigiisa oo gubtay. waxa uu iska dhaadhiciyey in uu dunidan waxba u yaalin, arrintiisana waxa ay naqatay in uu iska jiifto qolka fadhiga walaashiisa. waxa uuna ku fikiray in uu isdilo, laakiin ra'yigiisa waxa uu isbedelay maalin uu soo booqday gurigiisa gubtay. asaga oo baarbaaraya ayaa waxa uu helay qayb ka mid ah buug ay akhrisan jirtay xaaskiisa. warqaddaas oo ku qornaa qiso ku saabsan nin lahaa xaas iyo 2 carruur. maalin ayaa iyaga oo baabuur saarnaa la gadoomay baabuurkii, meeshana waxaa ku dhintay xaaskiisa iyo 2diisa carruur, asaga oo keliya ayaana ka badbaaday. ninkaas waxa uu yidhi wax walba waxa ay ku dhacaan qadarta Alle, qofkana waxaa loogu baahan yahay in uu aamino una dulqaato qadarta Alle si kasta ha ahaatee. qoraalkaas marka uu akhriyay Teddy waxaa isbedelay fikirkiisa ahaa in uu isdilo. wuxuu isku dayay in uu iska ilaawo wixii dhib ahaa ee ku dhacay. maalintaas wixii ka dambeeyey waxa uu noloshiisa ka bilaabay safxad cusub, waxa uuna naftiisa u sheegay in uu mar kale nolol samaysan karo. dib ayuu u shaqaystay, gabar kale ayuuna guursaday. haddana waxa uu ku nool yahay nolol farxad leh, xaaskiisa dambena waxa ay u dhashay carruur. intaas waxaa dheer dadkii dhibaatada u geystay oo dhan in uu iska cafiyey. marar badan ayuuna gabadhiisa xabsiga ugu tagay, asaga oo sheegay in uu gabadhiisa 100% cafiyey. arrintaas ay samaysayna uu shaydaan ka dambeeyey. waxa uu marar badan dalbaday in xukunka laga khafiifiyo, waxa uuna sheegay in uu xiiso u qabo soo bixiddeeda.